Ra'iisul Wasaaraha dalka Japan Mr. Shinzo Abe ayaa iscasilay. Mr. Abe ayaa iscasilaadiisani waxa sabab u noqotay xanuun uu muddo dheer la soo ildarnaa waxaana uu iscasilaadiisani ra'iisul wasaaruhu ugu shaaciyay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada caasimadda waa dalkaasi ee Tokyo maanta oo Jimcaha. Mr. Abe ayaa iscasilaadiisani ugu sababeeyay xaalado caafimaad dartood oo la soo gudboonaaday. Ra'iisul Wasaaraha dalka Japan Mr. Shinzo Abe ayaa muddo la xanuunsanaa gaasta caloosha ku dhacda balse waxa la aaminsan yahay in xaaladiisu ay ka sii dartay maalmihii ugu dambeeyay. Warbaahinta dawladda NHK loo yaqaano ayaa sheegtay in Mr. Abe uu doonayay inuu sarrabin inuu xafiiska sii joogo. Bilowgii toddobaadkani waxa uu noqday ra'iisul wasaarihii ugu muddada dheer ee dalkaasi Japan soo xukumayay kadib markii uu xafiiska la wareegay sanadkii 2012. Mr. Abe ayaa waxa uu xanuunkan oo ku dhaca midhicirka ka cabanayay tan iyo yaraantiisii 2 goor ayaa isbitaalka la geeyay toddobaadkan gudihiisa waxayna taasi keentay in su'aal la geliyo xaaladiisa caafimaad balse Mr. Abe muusan shaacin sababta uu isbitaalka u booqday laakiinse waxa jira warar la isla dhaxmarayay oo sheegay in isbitaalka uu ku jiray muddo 8 saacadood ah. Muddo xileedkiisa ayaa waxa ay ku eegay sanada 2021 saraakiisha xisbiga uu ka tirsan yahay ee LDP ayaa markii hore gaashaanka u daruuray iscasilaada Mr. Abe iyaga oo ku doodayay inay xaaladiisa caafimaad fiican tahay.